xubinka taranka ama ka dumarka ahaado ama ka ragga ahaado afka looma dhaweyn karo ليش لأنه وحوي ومحل القدر مش هو ميل وسخ مش هو ميل وسخ وماشي نجاساتكو كسو بحيين وميل انت بدن تشير مثله ميل نوعاasoo kaleeta afka oo madkhalkii jirka intiisa kaliya calooshii iyo wax uga galayeen in la aado maya wax kale iska dhaafay xubinku markuu ka jahayo waxa la yiri gacanta midigta ku qabanina afla aad iska dhaafay gacanta midigta ku qaban masaladaasi marka mas'ala sharcan banaan ma aha waana nooc adab darro iyo akhlaaq xumo ah waa nooc mucaasharo khaldan oo shariicada khilaafsan ah looguma talagelin Allah tabaaraka wa taala xubnaha ayagu isugu talagalay afku xubnihi meesha loogu talagalay ma aniga waxaan qabaa inay xaraan tahay in banaanayn arintan ay xaraan tahay baan qabaa waxaan ku salaynayaa oo ka sheegi karaa laba saddex arrimood arinta koowaad hadda la majlisku waa majlis fatwa oo gaabane waxa la yiri markaad xaaje gudataan gacanta midig awrada ha ku istijeysanin oo ha ku taabanina laakiin gacanta bidix baa loo ogolaaday haddii gacanta midig loo diiday waxaa ka mudan afkii Ilaahay lagu xusayay quraankana lagu akhriyay meel gacan midig ba loo diiday in lagu taabto in lala aadaayay sax maaha mid labaad weeye markii xiriir gogoleed reer dhex yimaado waxaa yimaada wax la yiraahdo madyi biyaha madyiga yimaada rag iyo dumarkuba way leeyihiin dumarkana waa u badan yihiin waana biyo nijaasa culimaduna ijmaac bay soo guuriyeen inay nijaasa yihiin fuqahaduna waxay ku tilmaameen culimadu markay soo baxayaan lama dareemo waxay sababi afkii nijaasa inaad la gasho oo nijaasa carabkaaga iyo afkaaga iyo bishimahaaga marka dambana lagaba yaaba inaad liqdo intaan ogahayna nijaasa la cunay xaraan way mid saddexaad baad ku soo biirtayo waa waxyaabaha ugu badan ee kansarka afka ku dhaca keena fidiya waxyaabaha ugu badan ee afka kansarka ku dhaca keena ama fidiya arinta waxaa report ku sameeyay 2003 report aan filaya 260 page inuu yahay laakiin English ku qoran yahay dawaan hayn jiray waa hor akhriskiisa ugu dambeysay report-ka waan hayn jiray qolyahan munadama sihal caalamiya la yiraahdo ama WHO la yiraahdo qaybta kansarka baa waxay kulan ku qaadeen ilaa 12 professor isugu keeneen magaalada Faransiiska ee Lyon la yiraahdo bay isugu keeneen report bay soo qoreen ay soo saareen ay kaga hadlayaan waxaan oral sexiga la yiraahdo iyo kansarka xiriirka ka dhaxeeya dhalashada iyo baahida dadkay qiyaaseen waxay dhaheen 70% buu dadka oral sexiga isticmaala kor u kacay markii dadka kale la barbar dhigay ee kansarka afka ku dhacahayo intuu kor u kacay ee fiday iyo inta uu kuwan kor u kacay 70% bay isdheeraadeen report-koodu waxa mise 66.7 two of third saddex meelood laba midkay ahaayeen eriyadaas ahayd waa number aad u sareeya markaad eegto xilligaas report-ka la soo qoray kadib aanu ma sii dabagelin report-yada caafimaadka khulaasada dadka carabiga aqriya waqtigaas waxa report-kaas oo carabi qayb oo khulaaso la soo gaabiyay wax lagaga qoray isagii oo Englishana lagu soo nashriyay website-ka la yiraahdo islamweb.net webkaas lagu soo nashriyay report-kii isagoo Ingiriisha iyo isagoo la soo khulaaseeyay qaybtaas oo carabi ah hadiiba khatar caafimaad uu keenay inuu dhaliyo ama aad u baahiyana waxyaabaha tahriimiyay kamid tahay sababaha darteed waxaan dhihi lahaa waxba uga baahnidiine meel afla saaro nadiifa badane meelaha oo saaqriga ijaazaadka ka socdaan afka sharfo ka daay